Fanaanada caanka ah ee Ugba Darassan ayaa waxaa lasoo sheegayaa in ay gudaha Jabuuti ka samaysay kooxdaasi oo aan magaceeda laakiin la shaacinayo laakiinse la arkayay sanadkii cusbaa show ay halkaasi ku qabatay oo fanaaniin reer Jabuuti ah oo halkaasi ay kaga soo qayb gashay. Awal waxaa la sheegi jiray in fanaanada caanka ah ee Khadra iyo sidoo kale fanaanada kale ee Yurub Genyo lagu arkay gudaha Jabuuti halkaasi oo ay ku sugnaayeen maalmihii ugu dambeysay walow aan la garanayn sababaha ay halkaasi u joogaan. Si kastaba ha ahaatee, fanaanada caanka ah Khadra ayaa waxaa la sheegay in ay sababta ay u joogto Jabuuti ay tahay in halkaasi ay waraaqo iyo baasabooro ay kaga dhoofi doonto oo ay halkaasi ku samaysanayso. Sidoo kale fanaanada caanka ah ee Ugba Darassan ayaa hoygeeda waxa uu noqday gudaha Jabuuti halkaasi oo gabi ahaanba ay ka guursatay nin halkaasina ay ku heshay jacaylkeedii cusbaa. Si kastaba ha ahaatee, fanaanada oo ama saddexdan fanaan ee hadda ku sugan oo hoygoodu noqday gudaha Jabuuti ayaa waxa ay kasoo jeedaan magaalooyinka Hargeysa. Hase ahaatee, hadda waxay u muuqdaan in ay ka digaragteen oo ay u digaragteen gudaha Jabuuti. Saddexdan fanaan waxay ku jiraan xiddigaha ugu waaweyn magaalada Hargeysa, gaar ahaan kooxda Xiddigaha Geeska oo ay ku jireen. Haddii ay kooxdaas cusub ay sameeyeen ee halkaasi ka dhismatay ay run noqotona, waxay dhaawac iyo sumcad darro xoog leh u keenaysaa fanaaniinta kale ah ama kooxda Xiddigaha Geeska oo ay awal ku jireen Yurub Genyo oo ah fanaanada aad iyo aad uga caan ah geyga Soomaalida, iyo sidoo kale Khadra oo ah iyadana fanaanad runtii aad looga qadariyo geyga Soomaalida, iyo fanaanada kale ee Ugba Darassan. Haddii ay saddexdaasi koox ka aasaasan gudaha Jabuuti, waxaa la filayaa in ay saameyn adag ku yeelan doonto fanka Soomaaliyeed, gaar ahaan fanka reer Hargeysa ee kooxda Xiddigaha Geeska, kuwaas oo hadda u muuqda in gebi ahaanba ay kala firdhadeen oo ay kala furfurmeen kadib markay timid xukuumadda cusub ee Muuse Biixi. Laakiinse xukuumadda Somalilan ayaa budget miisaaniyadda ugu dartay kooxda Xiddigaha Geeska, ilaa haddana lama hayo heeso cusub iyo barnaamijyo cusub oo ay Hargeysa ku qabteen. Ilaa hadda kooxda Xiddigaha Geeska waxay u muuqdaan kuwo gebi ahaanba shaashadaha ka maqan oo aan la arkaynin, waxaanay awal ahaayeen kuwo markasta saaxadda fanka kasoo muuqda. Hase ahaatee, fanaaniinta caanka ah ee ku jira Xiddigaha Geeska ayaa aad iyo aad uga walaacsan kusii mid ahaanshaha fankooda, gaar ahaan kooxda Xiddigaha Geeska. Waxaana la sheegay in madaxa kooxda Xiddigaha Geeska Laab Saalax gabi ahaantiisa isaga laftigiisa uu ka baxay kooxdaasi oo uu siyaasi noqday. Ugba Darassan ayaa waxay ka timid magaalada Hargeysa, halkaas oo inta badan halkaasi ay kusoo qaadatay waayaheeda nololeed, sidoo kalena fanka oo halkaasi iga soo biirtay kuna soo barbaartay. Si kastaba ha ahaatee, sababaha ay magaalada Hargeysa uga soo guurtay iyo sababaha ay uga soo baxday ayaa waxaa lagu sheegay in gebi ahaanba uu saygeedii hore ee Qamar Suugaani ay aad iskugu xumaadeen, oo taasi ay ka doorbiday inay gudaha Jabuuti iskaga noolaato oo ay xaajigeeda cusub ka ag dhawaato, halkaasina kooxaha ka dhisan Jabuutina ay iskaga biirto. Walow isaga Qamar Suugaani uu kooxda Xiddigaha Geeska ku jiro, taasina ay gebi ahaanba u nacday. Hase ahaatee, wararkii ugu dambeeyay iyo muuqaaladii ugu dambeeyay ee baraha bulshada lagula wadaagaya ayaa waxay iska ahaayeen kuwo qaar run u eg, qaarna ay been u eg tahay. Laakiinse fanaanada caanka ah ee Ugba Darassan weli kamay hadal xaaladii ugu dambeysay iyo kooxdaas cusub ee la sheegay in ay gudaha Jabuuti ka dhistay, oo hadda ay noqonayso xaalad cusub oo kusoo kordhay fanka. Haddii Jabuuti ay koox cusub ka aasaasto, Ugba Darassan iyo fanaaniinta la halmaalay hadda ay ku wada sugan yihiin Jabuuti, waxay noqonaysaa mid saaxadda fanka ku cusub oo waxyaabo badan ka bedeli doonta. Jabuutina waxay noqon doontaa hormuudka fanka haddii ay sidaasi ay ku dhabowdo. Fanaaniinta ku jira Xiddigaha Geeska ee hadda ku sugan Jabuuti ayaa maalmihii ugu dambeysay waxay ahaayeen kuwo lamaanayaashooda ka calmaday gudaha Jabuuti, halkaasi oo ay ugu dambeysay fanaanada caanka ah ee Yurub Genyo. Fanaanadaas ayaa geyga Soomaalida iyo guud ahaan aad iyo aad looga qadariyaa. Yurub Genyona waxay ka mid tahay kooxaha ugu waaweyn ama xiddigaha ugu waaweyn Hargeysa marka la eego fanka. Haddii fanku way saddexdaasi ay gebi ahaanba ay kooxda Xiddigaha Geeska uga baxaan oo ay Jabuutina kooxdaasi ka yagleelaan, waxay noqonaysaa xaaladda Xiddigaha Geeska mid aan sii waarin oo gebi ahaanba ka baxdo. Awal ayaa waxaa la sheegi jiray in kooxda fanaaniinta kale ah Asma Saban iyo fanaaniin kale oo kala duwan oo hadda Muqdisho iyo magaalooyin kale ku sugan ay gebi ahaanba iskaga soo baxeen. Kooxdii Xiddigaha Geeska ee awoodda lahaydna hadda
jirto meel ay fankooda iyo gebi ahaanba showyo cusub ay ku qabtaan. Sanadka cusub ayaa ahayd markii la filayay in Hargeysa showyo lagu qabto, hase haatee dhammaan waxaa baaqday showyadii la qabanayay, taasoo aan la ogeyn. دلان فوقي ديفتا كائلا بشير أظن وحدادي أم بدي باقتيلا حلي يدن دلان فوقي ديفتا كائلا بشير Inta kula lula